marxalad siyaasadeed oo kala guur ah ayuu ku jiraa dalkeena Soomaaliya wuxuuna u baahi qabaa hogaamiye wanaagsan oo ka gudbin kara xaaladan hubanti la'aanta ah qaranku wuxuu u baahan yahay hogaamiye karti badan dhiiran waayo arag ah dal jacaylku uu ku weyn yahay horeyna loo soo tijaabiyay waxaan har iyo habeen u taagannahay Soomaaliya sidii loo sixi lahaa nidaamkeeda siyaasiga aan gacan ka geysan waxaan rabnaa dalkan marbuu khaldamay burbur galay dadkiisu isnaceen kala irdhoobeen waxaan rabnaa inuu si sax ah u dhismo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu ku suntan yahay in uu yahay musharaxa kale ah ee ku faani kara wax qabadyadiisa taariikhda galay ee ay ugu muhiimsan yihiin hirgelinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha iyo dayactirka kuwii horay u jiray la dagaalanka musuqa iyo tashiilka kharashaadka dawladda hirgelinta dimuqraadiyadda iyadoo 53 sano kadib ay dadka gobolada Puntland si hordhac ah u doorteen hogaamiyeyaashooda dib u dhiska iyo tayeynta qaybaha kala duwan ee ciidamada Puntland iyo xoojinta amniga gaar ahaan la dagaalanka kooxaha argagixisada ku dooro Dr. Siciid Cabdullaahi Deni in uu yahay mas'uul horay loo soo tijaabiyay waxqabadkiisa rugcada ka dhabayn kara himilooyinka dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo hogaamiye uu halku dhigiisu yahay amni adeeg iyo amaano وبالغ مرميو تكني كوهاغاغاي وقامي يدني ودور هقادي هذا اللقون